wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Ali Maxamed Ali Dhuux iyo wafdi bilaran soo gaamiyay oo qayb ku hayaan la taliyaaga wasaaradda dhalinyarada iyo waliba safar taariikhi ah oo ku seedana 15 Febraayo sanadkan 2020 magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wafdiga iyo markii diireen garoonka diyaarado ee magaalada Xudur waliba meelaasay ka dhawaayay maamulka gobolka kan degmada xiriirka ciyaaro degmada iyo hukuumadda ururada dhalinyarada degmada Xudur iyo qaybo shir duwan ee bulshada sida sharafta aad noo soo dhaweyseen iyo jaceelka dawladnimada aad u qabtiin iyo mar walba sidaad u garab taagantihiin sidii gobolka Bakool loogu hirgelin lahaa abni wanaagsan iyo horsocod dawladeed waa ku mahadsantihiin aniga ka wasiir ahaan markan waxay ii tahay gobolka Bakool degmada Xudur imaanshahan imaanayo markii saddexaad oo saddexdii jeerna aan u imaanaynay howlo dawli ah aniga waxaan wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan qaabilsanahay horumarinta dhalinyarada waxaan ognahay Soomaaliya tirada ugu badan dadka populationka inay yihiin dhalinyaro dhinaca kale wasiir Ali Dhuux ayaa sheegay intii maalmoodan isugu booqdo doono goobo iyo ku socdaan mashaariicda shalgadiisan sida dhismaha madaxtooyada wasiirka iyo sidaas oo kale way xusay inuu isaga qalab ciyaartoy ka wareeji doona kooxooyinka heerka koowaad iyo kooxooyinka heerka lamaata ee banooniga lugta anagoo siyaasadiisa ku shaqeynay madaxweynaha iyo aragtidiisa iyo siyaasadda wasaaradda ayaa waxa naga go'antaa inaan horumarino dhalinyarada deegaanka gobolka Bakool degan inaan horumarino ciyaaraha sportiska ee kala duwan ha ahaadaan ciyaaraha fudud ha ahaadaan basketballka ha ahaadaan volleyballka ha ahaadaan footballka dhammaantoodna intaan joogno waxaan ka qaban doonaa wax weyn waxaan intii aan maqnaa aan raadinaynay mashruuc dhaxalgal ah oo dhalinyarada degmada Xudur aan ugu dhisno xarun ay iskugu yimaadaan ay fikirkooda ku soo gudbiyaan ay isku wareystaan xaruntaasi oo youth center ah oo yeelan doonta library oo yeelan doonta xafiisyada ay ku shaqeyn lahayd oo wax walba ay yeelan doonto arintaasna waxaa nagala shaqeynaya madaxweynaha dowlad goboleedka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen insha Allah inta hadda joognana arintaasi waxaan suubin doonaa dhulkii inaad nagu wareejisaan haddii aan fursad u helnana inaan dhagax dhigii suubino mudan gudoomiye inta aan joogno waxaan suubin doonaa inaan booqanno mashaariicda kala duwan ee ka socota degmada Xudur wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maalintii lamaad ee safarshii taariikhiga waliba uu kulan qaaday maamulada gobolka kan degmada soo ku dhugunsaday xaaladda guud ee gobolka iyo horumarada shir duwan ee Yuusubiya muddadii koobanaaytay kooreen wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska waliba uu kulan qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool gudoomiye ku-xigeenka Cabdullaahi Maxamed Nuur Isnaad yoonan kooreen ku dhugunsaday baahiyo gaarka ee dhinaca dhalinyarada iyo isboortiska ee ku teegan gobolka Bakool soo sheegay inuu saadi horumariyo ka qaybo shir duwan ee isboortiska intaas kureed waliba uu kulan qaaday maamulka degmada yoonan saasato kulan shiroogan dhammaan xubno golo deegaanka ee degmada walibana isbuugiiba maalinta Axadee iyo weeladaayna shirsho caadiga kulanka kureed wasiirka waliba uu kormeeray qaabkan socodka dhismo madaxtooyada koonfur galbeed ee meelfeeliya Damaraayta taasi oo hore iyo anshiid ka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed walibana kormeerka ku heliyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka riboorna laga siiyay mashaariic ilaa iyo 13 mashaariiceed ee uu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ka hirgeliyay degmada Xudur markii aan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka shirka la soo qaadanay oo aan ka soo baxay haddana waxaan tagnay gudoomiyaha degmada xafiiskiisii sidana loo sheegay maalin walba oo ahada maamulka degmada iyo guddiga konsolka degmada Xudur ay leeyihiin shir oo ahadla ah oo isugu yimaadaan waxaa maanta fursad noo ahayd aniga oo matalayo golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dhammaantood inaan shirkaasi ka qayb galo ee golaha deegaanka ku lahaayeen xafiiska degmada oo uu hogaaminayay gudoomiyaha degmada shirkaas waxa uu weheliyay oo aniga ila socday isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Bakool Mr. Umar waxa ila socday
xogayaha xiriirka kubadda cagta ee koonfur galbeed iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya annaga oo aan rabnay inaan ka dhageysano golaha deegaan akhbaaraadka ay hayaan waxaan meeshaasi ku wadaagnay xog badan waxaan ka wada hadalnay amniga guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ka wada hadalnay fikirka guud ama siyaasadda uu madaxweynaha rabo in dalkan laga hirgeliyo 3 sano ee soo socoto qaabkii loo hirgelin lahaa waxay naga wareysteen dhismihii isbartiibada meesha uu marayo waxaan ka siinay akhbaar inaan sida ugu dhaqsiyaha badan isbartiibada looga bilaabi doono oo ay wasaaradda ku guda jirto wax kasta oo ahayd mandatekeeda inay qabato guddiga waxay noo report gareeyeen in magaalada horumar badan ka socdo ay ku faraxsan yihiin madaxweynaha 4 jeer ee booqashada uu ku yimid markii historiga ahayd oo madaxweynaha la socday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre imaanshihii ay meeshan ku yimaadeen waxyaabihii la ballan qaaday oo ay ka mid ahayd in madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee gobolka Boqol degmadiisa Xudur laga hirgeliyay degmada Xudur maanta ayaan tagnay waa soo booqanay waxaan u mahadcelinayaa dadkii gacanta ka geystay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka Cabdicasiis Xasan Laftagareen madaxweynaha madaalaha ah ee aad aan wada jecelnahay oo aan garab taaganahay maamulkiisa wanaagsan ee suuban waxaan ka mahadcelinaynaa shirkadihii la siiyay kontraktiga oo maanta dhismahooda soo fiiriyay oo si hagar la'aan ah u dhisayaan madaxtooyada gobolka Boqol degmadiisa Xudur soo ku guda jir safar shay iyo socdaalka degmada Xudur wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska koonfur galbeed ya maalintii 3aad waliba uu sadaafuray horyaalka balooniga basketballka kaasi oo lagu qabto degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol munaasabada daafurka ciyaartaasi waliba ku qayb galay maamulka gobolka ee degmada Xudur dhinaca kalena wasiirka iyo dharka ciyaaro balooniga basketballka guddoonsi ilaa iyo 4 kooxood oo ku qayb gala doona horyaalka balooniga oo uu sadaafuray wasiir Ali Dhuux taasi oo ay qayb ka nagadaas horumariyo iyo dhiirigeliyo dhalinyarada iyo dhinaca kala qaybin qaadaas isdhexgalka bulshada lamada kooxood ee maalintaas la kadaafuray tukumada waliba hogaamiyay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin oo kumada ciyaaryahanada balooniga basketballka gudoomiyaha isboortiska degmada Xudur agaasimaha waxda ciyaaro ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska koonfur galbeed ayaa waliba uu ku dooyana munaasabada daafurka balooniga basketballka ciidan ka faraxsan geedka inuu qayb ku yeesho tartan geedka lan qabday 4 kooxood oo basketballka midba ka sugna degmada Xudur oo maalmoon wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro mudan Ali Maxamed Cali Dhuux oo booqasho kooy midba ku hayni wafdigiisa hogaamiyay ka qayb ku hayni midba ka faraxsan inuu geedka midba qalab isboortis oo 4 kooxood diiro inuu qaybin oo basketballka ay kala rajaynayeen oo tartan kale oo footballka naftiisa baabana geedka midba lama kooxood iyo geedka dheelahayta oo qalab shan geedka inta guddoonsiye midba ciidan ka faraxsan inuu degmada Xudur booqasho kooyna booqashadaas oo ay oo la soo xaq wareysada dhalinyarada deegaanka isboortiska baahiyaha gaarka iyo qaban baahi badan geedka midba way sheegeen inay taxtaa dayactirka garoomada footballka ee garoonka basketballka meerajeen oo sadan ka dhaqsiya badan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraya kaaladaas dawladda koonfur galbeed inay wada ku qabdo doona garoomada dayactir doon hoo bilaayra sadan ka dhaqsiya badan geedka midba ka sugna garoonka oo basketballka degmada Xudur hadana midba roge wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo gudoomiyaha gobolka saasoo kale midba qayb ku ah ciyaarta gudoomiyaha degmada ya mudane Maxamed Macalin ya midba ku ah dadka ciyaartooyda geedka dheelayadan ka faraxsan inuu midba fiirsano gudoomiyaha oo sports marida hada jeer hadan geedka soo daa midba geedka ciyaartooyda si naftiisa dhiirigelinaya inuu iska dhax jara midba iyadan ka faraxsan midba lana horumar fayl midba rajaynaya inuu markii uu ku horeeyay inta markii ka dambeeyay hada doona booqashada oo kooxda degmada Xudur may rajaynaya inay markala ka naga mar lamaad mar saddexaad ilaa dhowr mar kooyna marka si lan ka qabtir baayaha jiran gudoomiyaha gobolka Boqol Maxamed Abdi Tool oo ku qayb galay munaasabada daafurka balooniga basketballka iyo waliba wasiir Ali Dhuux Maxamed iyo waliba si wada jirayo sheegana
inuu kaalin weyn ku jeysado doonaan malwalba sidii loo horumari lahay ciyaarta basketballka saad ogdo gobolkan waa leen ka saay lama ciyaarod ciyaarta oo basketballka la raw ciyaarta volleyballka la raw iyo atleticka sadiidaas ciyaarada gobolkan aan ka hay intii ma la raay dawladii hore iyo waqtiyada hore marka hadii ilaahay armay fadaane inay waqtigan hata dhawoon hata ka jarna ciyaaro inay sad la korlin qaada la hakanaga positionkii horta ciyaarta ku jari gobolkan la hakanaga eedayadan ka faraasna inaad hanay kula joogtoon ila aragdan eedan ka faraasna ma jeela in aan ma la raay war kooban aan ko si taariikhda gobolkan Boqol way hay goboladii ma la raay ciyaaro ma la raay hadii sadiidaas ciyaaro aan sheego hadii ku gobolkan ka fayl way hay ana ciyaarta handballka sempre ma heri jirana ma raay semi final ha gal jiraan ciyaartooydaas oo serie aad aan way waxa dhalinyaro far badan oo inta kubadda serie aad gal jirtay ka shaqeey jirtay ya ciyaar jirtay marka sidaas daraadii waa in baahida inta jirtay inuu ninkii gudbin anta ma ilin baahan kubadda cagta dhalinyarada kubadda cagta way ilin baahan in tababar leen furo ilaa sad kooxood tababar leen furo sodin lix qofood tababar leen furo helan tababarkii wasaaradda isboortiga dawladda federaalka ma qoodsadaan tababarayaasha Xamar Bilaash in isku fadhi inaan diran saddex tababar oo koono basketball koo football koono volleyball inaan diran qoodsadaan ma kala qoodsadaan ma la raay in qalabkii walaay ku dhuman tiimamka ku dhuman koobo in la hasheen qalabkii atleetikada la qowdaa in la hasheen ciyaaro walaay la qowdaa switch mahareeto oo saadooyo oo ciyaaro la qowdaa in la hasheen way kala codsadaan in dhalinyaro far badan leen tababaro arbitr leen tababaro juuridi arbitralki kubadaha oo dhan kolayga atleetikada iyo meel raay kubada intaas meel raay waa in baahanina in meel raay leen tababaro kufriyaalka leen tababaro juuridi la tababaro macallimiin tababaro ciyaarooyin meel raay oo tadriibad badan siinay in nishan ya fadaan hadii ilaahay ma kala fadaan hadii ilaahay mustaqbalka ciyaaro la qobdo doono ma sadiidan gobol ma fadaan in gobolka martaqaad koo oo martaqaad wadaan ma fadaan in ciyaaro sadiid gobol in la qobdo hadur qobdo fadaan hadii ilaahay mustaqbalka dhow maadaama ma la gobolka waqti hore in dambeeyay in ma la raay ciyaar la qobdo waqti hore in dambeeyay in ma la raay dhalinyarada la abaabulo ma fadaan abaabulka in hore sadiidan gobol in la ku bilaawo ciyaaro gobol sadiidan gobol koonfur galbeed in la qobdo gobolka Boqol degmada Hudur taas oo Suudaan in aad loo deersado madaxweynaha dowladda gobolka koonfur galbeed iyo wasaaradda dhalinyarada isboortiga dowladda federaalka saas oo sidaas ma fadaan in aad loo deersado galabta waxaan ku sugannahay garoonka basketka ee degmada Hudur oo qayb ka ahayd safarkii aan ku nimid gobolka Boqol degmada Hudur u kuura galidda ciyaaraha kala duwan gobolka Boqol degmadiisa Hudur maanta waxaan qabanaa tournament ay ka qayb galayso 4 kooxood tournamentigaas oo tournament basketball ah oo la rabo in lagu asteeyo nabadda deegaanka ka jirto dhalinyarada sida ay heegan u yihiin dhalinyarada sida ay macnaha diyaar u yihiin sida u horumarin lahaayeen qaybaha kala duwan ee sportiska aniga ka shakhsiyan ka wasiir ahaan waxa farxad ii ah inaan arko tiimam abaabulan oo basketball ah oo ka faa'iideysanay garoonkii loo dhisay oo arbitrayaal leh oo tababarayaal leh oo maanta rabaan inay basket ciyaaraan isla markaasna meeshan ku soo bandhigay wacdara aad u fiican oo basketball ah waxaan dhageysanay qaybaha kala duwan ee baahiyaha ka jiro waxaan aragnaa inay naadiyadu u baahan yihiin tababaro waxaan aragnaa inay tababarayaashu u baahan yihiin in xirfad kordhin la siiyo waxaan aragnaa inay ciyaartooydu u baahan yihiin in technical levelkooda iyo xeerarka basketballka sida kor loogu qaadi lahaa in la suubiyo waxaan saakada hore la kulannay gudoomiyaha gobolkii gudoomiye ku-xigeenkiisii hadda waxaan nala joogo ciyaarta nala fiirsanayay gudoomiyaha gobolkii gudoomiye ku-xigeenkiisii waa arkayseen gudoomiyaha gobolka baaqi uu diray ee ahayd in si degdega loo soo gaaro welitool wuxuu aad ugu celceliyo wasaaradda shaqada fiican ee naga dhexayso oo wasaaradda federaalka ah oo ay hogaamiso khadiijo maxamed diiriye sidii ay ugu soo diri lahayd gobolka Boqol tababarayaal ama xiriiradii kala duwanaa ee kubadda kolayga iyo atleetikada insha Allah waxaan ku dadaali doonaa
annaga oo ku shaqaynayna awaamiirta iyo aragtida madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen in aan kor u qaadno ciyaaraha kala duwan ee ka jira dowlad goboleedka koonfur galbeed ha ahaato degmo walba degmada Afgooye degmada Marka degmada Baraawe degmada Tayaglo meel alla iyo meesha aan tagi karno waxaan u tagi doonaa saan waxaan kor u qaadi doonaa ciyaaraha kala duwan waxaan ku faraxsanahay inaan xudur joogno waxaan ku faraxsanahay inaan basketball fiirsanayno maalmo uu suruugii wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska magaalada Xudur ya waliba uu tababar u sii gudoomiyaha gobolka si wadajirayo Xuduran ku furana soddon kumida dhalinyarada degmada Xudur oo yoon iska jiraan tumiyoonaysan gibdhe iyo tumiyoonaysan Korea walibana lokabaraay siyaasadda dhalinyarada koonfur galbeed iyo istiraatiijiyada wasaaradda 2020 ilaa 2028 aan hukuumadda dhalinyaradii ku faa'iideysatay tababarka iyo kuduway fikirsha walibana oo sheegana in muhiim ah in la joogtay barnaamijyadan oo kala wasaaradana iyo kocodsadeen in mar walba iyo kor hayaan magacay wali leeray Firdawsa Ali Abdiraxmaan wali ku soo dhalinyarada geedka antoodin koynay siyaasad dhalinyaradan koynay siyaasadda dhalinyaradan koynay horta dhalinyaro meelka dhalinyaro wali la kooday dadkan dhaheeyaan tumeeshan ilaa 40 dhaheeyaan dheere wasiirkana nin kooy eedahan dhawaayana mid kale wali ka darsaday shirka intii la eekaayay bay dhawo wasiirka wali ka codsadaan intii marlamaad in mar saddexaad shir noocan amalnayn oo badan taninka gooda su'aalno weydii fikradana la qaybsano fadana wasiirka taas weydiisaday mid kale wali weydiisaday youth center diisanin dadji yoonin dhasa bismillaah maamil raas mudaan maxamed cali wali meelaha ka dhawaay horta maadada kood wasiirka sportiska tan lamaad meel raas horta meel kulan dhalinyar ka sameeyo horumarin eedan ka faraxsan inta kulan dhalinyar la sameey hadan ma mahadnaqaanayo mar lamaad mar sida mahadnaqaanayo soo niisheen kulan dhalinyarada ma fadhiya milshan gobolka Xudur dhisheen hadan meel raas ma bafadaan intuu sameeyay degdeji oo hani meel raas aan tarkus damin dhis fadaa intuu sadaqsadeen min dhis gobolka ma bajeela intii korneen aad horumarin ma heeyaan ana mar walba inta garabshay suurnaa magacay waa Maxamed Guri Xasan meel raas oo ka sugan xarun goboleedka degmada Xudur xafiiska gobolka Mukola ka sugan hata iyadoo maanta la nin ku biyay seminar oo training oo tababar ah seminarkaas oo lunku hadalay siyaasadda dhalinyarada koonfur galbeed taas oo nin socotay oo nin waxyaalo badan ku faa'iidnay oo fikradooyin isla wadaagni oo sidii dhalinyarada koonfur galbeed iyo dhammaan Soomaali weynta la hormarin lahay sidoo dhanka sameey lahay shaqo abuur iyo sidoo lihiigsada lahaayeen siyaasadda Soomaali sidoo aan ka beerin lahaayeen madaxda fursadooyin ku helaan hatan hogaaminta dalka intaas badan oo seminaarkan xisaabsanay oo lagu hadalay dhalinyaradaas ya seminaarka la ku biyay oo wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska koonfur galbeed oo barnaamijkaas wada waan eedanka mahadsanyiin aduunan dhalinyarada degmada Xudur oo iska dhajaran dhalinyarada awood-yahanada dhalinyarada sportiska iyo dhalinyarada amniga oo markaas iyo qaabilsan magaalada magacay Maybo Umar Abdullaahi Maxamuud isku duwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maalintii sabtiga haytiya mahayna deeray wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed Mudane Cali Dhuux oo u sii wafduus isla jaraan oo maalintii sabtiga haytiya deeran oo maalmoon howlo shaqo aan ugu doonaan way gahtaa dareere maynin suurta galay geed intii la qawana kulan oo meel raayso dhalinyarada degmada Xudur oo ka fiiriyaan maskala ka akhriyaan fikrado ku dhiibayaan siyaasadda dhalinyarada dowlad goboleedka koonfur galbeed ama Southwest Youth Policy oo leeyahay iyo strategic plan oo wasaaradda dhalinyarada sportska indejiidi
sanadaha taa dareero inta dhalinyarada lumwadaaga dhalinyarada araga fikirku dhiibadaan walaahi oo lala deebay meelanka aragayaan iyo fikirka ku dhiibadaan ku saxan walaahi saxan aragayaan ka sheegan walaahi fikir ay hatana ka kordhi karaan hatana ka kordhiyaan saasageeka ayaa kulankaas lan qabday mayna rajeeyay inta dhalinyarada ay ku faa'iideysan doonaan waana wal muhiim eedan waayo siyaasadda dhalinyarada koonfur galbeed hobleera dhalinyarada koonfur galbeed dhan wala dhaxeeyo wal oo may buu dhalinyarada koonfur galbeed meelo biyo rogan inta la tuso aragano akhriyano walaayo ka daraan ka darano walaayo ku biyaan wala baahaniyo anina siyaasadda dhalinyarada oo koonfur galbeed may ka aragay magaalada Baydhabo iyo oo dhalinyarada magaalada Baydhabo rogan fiiriyaan dib u eegis ka sameeyaan qalabka ku saarayaan walaayo sax ee ka darayaan walaayo ku biyayaan yameelka aragay ani may ku osay wasiirka wasaaradda may ku osay intii koonfur galbeed Baydhabo shileeyay leeyahay oo magaalada Xudur la jeeyay gobolka Boqol la jeeyay dhamaan gobolada koonfur galbeed la jeeyay suwala walna siminya oo dadka dhan siminya koonfur galbeed dhalinyarada dhan siminya sakanaagada waayo hoob siyaasadda dhalinyarada Baydhabo shileeyay leeka ekaata mayna nagadaas siyaasadda dhalinyarada oo dhalinyarada Baydhabo leeyahay nagadaas taasna wasiirka eedeedan ka mahsanyi jawaab oo degdeg ah ninku bi waa maninkooy barnaamijkan shay taxta geeka inta lagu ka hadlayo oo dhalinyarada ku hadlayo dhalinyaradana may dareemayna may leeyahay intii oo qeyb ku yihiin dhalinyarada koonfur galbeed intii oo macnaha muhiim ay dareemayaan intii fikir iyo lambaahan ya dareemayaan intii mar walba iyo dawladda iyo wasaaradda garab teeganta dareemayaan ولين ولا ونفضاني أنتاسو وايو dhalinyarada hoob walbana sheegna oo meel erays wala wacyiga dareero iyo nasocone wala Baydhabo maskal Soomaali meel erays meel walba dhalinyarada roogan helayaan hoob hawgudi iyo helna waleerko may dareemo korana intii meel erays isolation la ka sameeyo markuu loo taasay dhalinyarada meel erays erana wala say macnaha ma jiraan laakiin wala sindeeru ay ismiilayna وكويدنا ونلنا يتصوت أنت أردنا نيرد من الرئيس جيك أنت لم كشانو أو فكر كبير بدنو ولا يجري شيئانو أو ما الرئيس سياسة إيد فلان كيا تاسش أنت وزير كان إيد يدن كما سنو لما أنت وزارة ده كشري كان إيد يدن كما سنت تنكر دنيردنا ما يشجعها دنيرد ما يبواها ما بقول كيبت تضوات الشن يو ولا رأي دنيرد أو كنول بمعنى بقول تضوات الشن dhalinyarada guud oo Soomaaliyeed boqortooyada waati shaqo baatay dadkan ka badan reedu wasaarahna ma eray hameelay dhalinyarada milkiilayaasha dalku wal sax ah wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska koonfur galbeed ayaa sheegay in ku goonta garab surmowga dhalinyarada iyo horumariyowga qaybo shal duwan ee isboortiska waliba uu sheegay in ay dhisa doonaan xarunta dhexe ee dhalinyarada degmada Xudur taasi oo ka helo doonaan walwalbo iyo ambaahin tababarkan iyo kubiiriyaan fikirsho waana ku bedelaan waan waliyo ka daraan waxa laga hadlaayo mustaqbalka ilmihiina waay waxa laga hadlaayo kontanka sano ee soo socoto dhalinyarada degmada Xudur degan iyo dhalinyarada gobolka Boqol degan iyo dhalinyarada Soomaaliya degan sidee looga heli karaa dad hoggaan ah oo ka soo baxo degmada Xudur waay waxa la rabaa aqoon-yahanada dhalinyarada ah gabdhahan waalidkan u ahay ay hor fadhiyo dhammaantiin waxa la rabaa inaad ka fikirtiin sidii aad dalkan ugu noqon lahaydeen tusaale lagu daydo hadda waxaad tiin tusaale lagu daydo Xudur dhalinyarada waxa lagu soo qaataa meel walba waxa tusaale ku soo qaata madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka intaas oo dhan waxa dhalinyarada deegaanka tusaale loogu soo qaataa sidii ay ugu istaageen xoreynta deegaankooda sidii ay ugu istaageen inay cadawga iska celiyaan sidii ay ugu dulqaateen duruufaha adag ee ka jira Soomaaliya tusaale la soo qaataa maxaa la rabaa marka dhammaantiin sida uu gudoomiyaha sheegay inaad ka faa'iideysatiin waqtigiina yar aniga maanta 50 sano jira tool 60 sano jira gudoomiyaha wuxuu jiraa in 50 sano dhammaanteen aniga waqtigeena gabagab u siiyay adinka waa dadka mustaqbalka dalkan leh waxaan ilaga rabaa mustaqbalka dalkiina inaad ilaashatiin waxaad adiga leedahay waxa la rabaa inaad adiga dhooratid annaga ka wasaarad ahaan waxaan mandate u leenahay inaan horumarin dhalinyarada maanta waxa idin sharci doono la taliyaha sare ee wasaaradda ayaa idin sharci doono
waxaa joogay isku duwaha wasaaradda oo qof aad u dadaal badan ah oo annaga aan ku faraxsannahay waxa aan rabnay inaan ka hadalno qodob ahaan waa siyaasadda dhallinyarada koonfur galbeed siyaasadda dhallinyarada marka laba qaybood ay u kala baxdaa siyaasadda guud ee dhallinyarada qaranka Soomaaliya haddana waxaa jirta siyaasadda guud ee dhallinyarada koonfur galbeed Soomaaliya waxaan magaalada keenay in la dhiso xarun youth center ah hadda waxa ay hor fadhiyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay xafiiska youth center ka ah oo xarunta dhalinyarada ah wuxuu noqon doonaa xarun dhalinyaro gudaheeda laga heli doono isbitaal yaro MCH ah gudaheeda laga heli doono masaajid yaro lagu dukado gudaheeda laga heli doono library ah wax ku akhrisata meel aad bingball iyo volleyball aad ku ciyaartaan xaruntii iyo xafiisyadii dhalinyarada oo dhan macnaha meel yar ma noqon doonto waxay noqon doontaa meel weyn taasna waxaan rabaa inaan idinkugu hambaleeyo reer Xudur adinka inaad u hesheen fursadii koowaad oo wasiirka iyo wasaaradda oo wada socoto inay xaruntaasi dhacdo waxaan ka bilaabaynaa degmada Xudur taasna waxaa keenay dadaalka adinkaad intaas u soo taagneedeen qofka bini'aadamka sidiisaba waxaa la dhahaa qofka dadaalo waa la abaalmariyaa waa dadaasheen arrintaas waxaan ku subinaynaa abaalmarin waxaan rabnaa inaan xarunta inta ka dhisno xaruntaas inaan meeshan ka dhisno waxaa aad iyo aad uga shaqeeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo marka aan inta soo aaday salaan idinkugu soo kiidibay iyo marka dhalinyarada kulanta salaan iga gaarsii madaxweynaha waxaan rabaa inaan idiin sheego markay dhamaato xarunta madaxtooyada dhismaheeda inuu Xudur u soo wareegi doono uu joogi doono markay uu yartaa bil ilaa 2 bilood uu meeshan ku qaban doono shirka golaha wasiirada dhan la iskugu keeni doono dawladdan waxaa ka go'an Xudur sida loo soo celin lahay Xudurtii hore marka waa maadsantiin hadal yaa idinku daalinin Siid Cali aan garoonka u daynayna Umara idinla joogo waxaa idinka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad in aad dhagaysatiin waxa niila sharxaayo bogaaga niila keenay qalimaana niila keenay inaad nuudgaraysatiin wixii dooda aad ka qabtiin la taliyaha sare la kaashada Umar la kaashada anigana doodaas aan dhagaysan doonaa wax alle iyo wax dhadin lagu daran waa lagu dari doonaa wax alle wax dhadin waa laga bedeli doonaa maalmo safarka taariikhiga ee wasiir Ali Dhuux iyo waliba saasaata uu ku mid hayay intuu surooyi degmada Xudur waryaabo uu soo qoobaday waliba alaab ciyaareed ku wareejiyay ilaa kooxood oo dhiilasa buluuniga lugta ee ka dhisan degmada Xudur ee gobolka Boqol kooxo likumida waliba heerka koowaad ama Zero A meelid lito kalena UAN heerka lamaad ama Zero B munaasabad kooban oo lagu qabay garoonka buluuniga lugta ee Dr. Waaberi Stadium ee magaalada Xudur yaa alaabtaasi lagu wareejinta kureeda iyo riba koob lankamaga dari dhiirigeliyo ka nabadda wasiir Ali Dhuux iska daafuray garoonka buluuniga lugta ee Dr. Waaberi Stadium walibana dhinaca kale naadiyo ka dhisan degmada Xudur iyo ciidanka faraxna waan handhawaayana dadaalkii wasaaradda reedanka naga ay takaalantii degmada Xudur iyo guud ahaan gobolka Boqol ka lahay ciyaaro shal duwan ee dalka kubadda cagta meelaha degmada Xudur oo la qeybay kooxo qalab oo darees dhammaystiran mayba maaliyi iyo nay sigsaantiyo buumadio mayba niisuuf galwaayay meelaha jaalatiyo markaasay ku deersana kuboogi insha Allah wajiga lama may fadaan qalab dhammaystiran intuu helna taasna hadii ma isku leeyahay subhanahu wa ta'ala ku soo wasaaradda dhalinyarada ciyaaro ima iskaashadan xiriirka kubadda cagta koonfur galbeed Soomaaliya oo hogaamiyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Axmed Ali Xasan may eedeedan kuma nagay dadweynaha ku nool degmada Xudur guud ahaan maamulsho iyo shacabsho gaar ahaan sportskeedeedan kuma nagaan soo dhaweyntii feelaytay muujiyaan iyo inay wada shaqeyntii in roogni meel raayis shaqada نيل الشقة يعني قرب سلمان إيدي أنا كمان نجانا في كمية رجلات كلام دكتور وابري استاديوم مجال هذا حضر إن ما بقى يبقى ما بقى يكن عندك فرن يترتم أو قريب جرعان اللي حدك واحد أو هرب كود أو مجال هذا حضر ترتم كاسو قبتي وزارة البلنيرة عيارة أو جاميو وزير كوزارة البلنيرة عيارة مدن علي محمد علي على اللوح أو بوغشوس الكوي مالمون
maalintii saddexaad yaa booqashadii geedka maraayta maybana geedka aan ka talgalnay inuu kooxo ku dhisan heerka koowaad iyo heerka labaad qalab sports oo dhammaystiran ka guddoonsiinay kooxo may kale geedka tartan ka furnay kooxo oo heerka koowaad oo ka kooban yahay kooxo tartan show oo iswada arag nagaba doona maybe eedanka farxasana inuu qayb ku ana wafdiga wasiirka hogaamiyo oo tartankaas iyagana aan ka furnay meerajeenay maybo tartan qarqab inuu sanagada waxaan kale oo maanta aan furnay ama aan agab sports u qaybinay 12 kooxood oo Serie A iyo Serie B ah oo ka dhisan gobolka Boqol degmada Xudur maanta waxaan u furnay koob loogu magac daray koobka socdaalka nabadda waxaan joognaa isbartiibada dadka aad ayay u faraxsan yihiin waxaana laga soo wacayaa meel kasta oo deegaanka ka mid ah oo lagu taageerayo waxqabadka iyo horumarinta isboortiga iyo abaabulka dhalinyarada annaga ka wasaarad ahaan aad ayaan u faraxsannahay waxaan ballan qaadi doonaa in aan ka wasaarad ahaan gaarsiin doono maamulka wasaaradda 18 degmo oo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaad ogsoontiin hadda ka hor waxaan tagnay degmada Marko waxaan dhowr jeer ka qabanay tuurar degmada Afgooye xaflad si weyn iyo agaasiman ururada dhalinyarada ee ku nool degmada Xudur isla markaasina la ka dhawaayay waan lagu sagootiyay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska koonfur galbeed Ali Maxamed Ali Dhuux iyo waliba lagu qawaday magaalada Xudur ولبنا كقيب جلي قدومي الدكمة حضور محمد معلن قدومي كوجان كجوال كبقول عبد الله محمد نور نسناك يقيب بشر دبون أي بلشيد كنول مجال حضور ولبا فرتان كقدوه هي قدومي الدكمة حضور محمد معلن ولازم معنا شو الفضي رنت لنفتها والبدن معنا دولة كده جري قابضن والبدن أبو كنت أرنتيه سوسان كدير الكروي كمان نقان وزير koonfur galbeed saat isku duwa sheegayo oo Soomaaliya hadii leere boqolka 25 dhalinyaro waleeri hatana wayba aaminsanaa Soomaaliya hadii la meelod isad meelin dhaka ani la meelod koonfur galbeed ay ta aaminsanaa dhalinyaradii ruuxanti hatana wayba aan dadka boobareetinka aan ka dhabaata badanaana arintii kulli taas walilahay luweydiisadu laakiin naqulu markii masab ismeerik roog wala ismeetilay masahan wal qobada wal weydiye barnaamijyadaas barnaamij dheero ka wasiir ahaan una weedan ka farxasana kooyo kala qoyti magaalada Xudur magaalada gobolka Boqol Xudur saad waqtidan roogdiyadina wal garban nagati runtii iyada kama naqaana hadwayba matalaasada dawladii dhan koonfur galbeed matalaasa madaxweynaha koonfur galbeed adii wakiilku dadkina shacabkii ka maamulaasay masahayna wasiirka hayti runtii inada hadda fadhiyo su'aalo kaliyan sabab ogolaadkii kama naqe taas madana ku gudube wasiir siyaad ogdoona geedka kormeera jirtay kormeerka suubiyaasi si maana magaalada Linguardio isna nabadgelyo ku shaqeeyay ilaa markaadkii hayti sababtoo ah meel nabadgelyo jarna wal jarmale meel nabadgelyo jarna malnaysa kooyo meel nabadgelyo jarna wasiir ma kooyo ra'iisul wasaare ma kooyo madaxweyne ma kooyo nabadgelyadu wayba ku asaasan telefaday bulshada ku asaasan telefaday una ka bulshaha way baan iska talagalnay sadii baragaas aniguna madaxweyne surna marka runtii una dhaqdhaqaaq iyo nabadgelyo wayba la ka sugay mahadaas ilaahay isku leh kusoo shacabka isku leh shacabka sababuli shacabka intii nabadgelyo ka shaqeeya ka talagalay magali banaan wala nil surunyi magaalada ku dhigay wayba hato wala inta ka dareeraysa staff min baan in sadii baragdiyo yeedana sakuurid kooye yeedana ku waardiyaas magali banaan la ki waardiye korona ko ilaaliya korona ko dareer runtii wayba anor masana wayba dheegi jirnay dawladda elektreleero kulliye macal shacabshe ciidamadu waa dheegi jiray lankas geekob dagaaldi lankas rooga shacabka guriga ilaa qaaday dagaalka leeyahay magali banaan hadii reer u duran saas oo kaleena
an kasto oo maana deegaanka rooga oo geeka dhawaatada shaqo mas deegaan shan wadiile braan ee warada ka haylan shalay roomale nabadgelin saasalin ko shaqeeyahay wayba maadaas kule ilaahay iskule kusok wayba maadaas le shacabka oo aamini dulshoon aamini wadannimada aamini yaa iskule dhalinyaradan faraha badan oo inta karagaas dhalinyaro baagmoonda ku dhige meherin ma haysadan shaqo ma haysadan kullu jooy waa languloobe langma hodur wala ka baray lambana wala ka bardo languloob deegankii shay nagadi way baan baahanyiina daryaal badan aan baahanyin koor gabadha aan baahanyin way baan baahanyiina maana shaqo abuuris aan baahanyin way baan baahanyiina la dhiirigeliyo aan baahanyin war badan aan baahanyin rumaantii dhalinyarada Miguel Brand mustaqbalkii future kuwa masalanka dambuuyu dadka maana deegaanka dhaxalaano dalkan qobsadaano dalkan ay tinshay ku tarayaan la fado dadka timaana waraa uu hooseeyo una markan ka baad langolo milan roog ilaahay og laakiin una khaatameen laakiin ba fadaan inuu dadkii oo una hal deeray mas dhalinyarada ay deegaanka deeri ani way ba fadaan walfayl nidaam faylo kadiida oo noo dhaaraan ay idin jeelna nabadgelyo noo dhaagalan wadannimada noo dhaaran saasa idin jeelna marka wasiir insha Allah hadalka ka dheeradi dhalinyaradii ku qaybgalaya su'aalo weydiiyay wasiirka aanaasay oo inta badan ka saabsanayay howlo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidii loo horumariyo lahaayay magacay way leeyahay awalan ubaxadan warsamay wayba ku dareerahay ururka oo ku durgaalis gabdho xudurka midaysan wayba ku warsaday mudane wasiir markii la erad ka dhalinyaro ahaan gobolka wayba ku tirsan ku qaybsan yahay rag iyo dumar iyo rag markan doorka mudada hadda koo wayba sameeyay isboortis la bandhigi dhalinyarada inta badan way aragaan in la jaan qaada si kuriita una wayba way ku tirsan way la xisaabay inay ku mid ah dhalinyarada gobolka hadii dhalinyarada mar la eroon mashal basan una dhan marka doorka kii kaan may yani qabada doonta ama may kii ku aadan maadaama aad kuriiti banioni siidi una kii kaan may kii ku aadan way may koos garay ini may laas wala nin banaa gali ani lawad askaro leey nagad tankan su'aali lama wada may plan nin height oo yani oo badbaade oo yani oo si confess my nin height su'aali intan leey idan ma sabta oo nabadbaroogan mase nabadbar shaqeeyaan mase qofka ay dhibaatayna gacantii oo ay ku badbaado wasiir makin qorshaysan dhalinyarada oo kumad ay shabaabka xigeer makin qorshaysan dhalinyaradaasay sida dibdasho reunification laga soo dhigay oo dhalinyaradaasay dhibaatada umatiyo ka xaanay badbaadi wali kumada kumuna gacantii ka jirta dhalinyarada oo meelaha dadka oo doorka ka jira dhaaf gobolka marka dhalinyaradaasay doorka ka jirta makin ku qorshaysan intii la soo dhigay maadaama dhalinyarada dawladda la roogda fursado badan helayaan oo meelaha xitaa nabad ka noolin totaas su'aalo kale wali waxa su'aalo kale anaga wali waxa may dhalinyarada intii horta wadan meel ku baxay dhalinyaris ma dawal barada iyo horumar dheeray dhinaca waxbarashada dhalinyarada dawladda Koonfur Galbeed dhinaca wasaaradda intii dhalinyarada waxbarashada la siiyay ma ku qorshaysan hadii oo yani wasiirkeedii maadsiini una ahaan dhalinyaro ahaan hadii una nagana may leeyahay dad oo creative leh oo hal abuur leh oo yani oo wal qabsado korona nagana oo hundurmaduna ku kana yani wasiirkii dad kale banacaabiyaan wal qowdeen laakiin hadii uu naqan yani dad oo hunduro oo yani waa baalertan kishadnayna oo yani sidii oo yani wadan sho mas gobolsho ka hormari la in ka jarnaba yani qof oo walna qowdo male ay uu hundurayn way bifadeen intii hadii uu dhalinyarada ka noolaytay gobolka Boqol gaar ahaan degmada Uxdur intii uu yani galnyas qabsana oo meelay fikradoogan oo niijara yani oo haban dhigna sidii uu wala qabsada lahayn yani oo wasiirka iyo dadka kalena ni caawiyi lahaayeen tan kale meelan ku bixi wasiirkana way boorsaday maadaama way bajaray dad oo yani aaminsan oo ka jara fikir yani intii haweenka yani waa ban hadal kornay misane walban qabsado kornay
run ahaantii way bajaray gabdho oo firfircoon oo yani karta ka jarto oo migalka ku karta badan yadeelay markan way balaha dadka oo aaminsan yani fikirkaasaytii oo gabdho intii wala qabsado korna aaminsan fikirkaasaytii isku saara gabdho wal kasti hasaar koran wili migalka kormar koran oo waliyo migalka qaar kood tan saar koran hasaar koran wasiirkana wayba weydiiyay yani may yani oo ni dhiirigeliyaasa ka haween ahaan may ni dhiirigeliyaasa intii sidii horumar uu ka deeri lahayn balan qaad badan aan sameey oo dhinaca sportiska may ba sameey ereyhan ini oo sportiska si doona lacag oo adadii dhan booli kontonkun oo u saaka dhiibi maamul goboleed badan sida galmudug sida oo meelo badan koonfur galbeed ku saabsan haka balan qaad baydhabo hata galmudug indi walaaje boroseska jaran oo lan sameeyahay raniin sheegi baydhabo saas oo kale walaaje gebagebe eta indi lan sameeyahay xudur maadaama oo ka jarta beesidii li balan qaaday wasaaradii adeena madaas in hayn hilkan reedkun ku qoyti may ku hayto waree may baa hoganin ku hayto inta ka dhamaatay beesidii waxaan rabaa marka hore inaan dib ugu laabto inaan ka jawaabo su'aalihii kadibna aan soo gabagabeeyo oo dareenkayga iyo caawa xafladan iyo joogitaankayga 4 maalmood iyo 5 maalmood la soo dhaafay degmada xudur dareenkii aan ka qaaday inaan idin sheego su'aasha koowaad waxaa i weydiiyey mahad nuur su'aashiisa waxay ku salaysneed asiga oo matalaya Somali Youth Organization SYO wasiir maxaan kugu aamini karnaa ballanqaadyadii aad suubisay maxaan kugu aamini karnaa evidence caddayn horta wasiir markuu hadlo hadalkiisa dikareeta ah aniga markii lay magacaabay waxaan isbaranay cumar oo joogay degmada baydhabo xil wareejinta joogay isku duwana uu ahaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Boqol cumar maanta uu ila joogaa waxaan ka ballan qaaday safarka ugu horeyso anigoo shakhsi ah oo kaligay socdo oo wasaaradda howle leedahay aan qabanayo waxaan aadi doonaa gobolka Boqol degmada Xudur waa ka dhabeeyay safarka ugu horeeyay oo shaqo aan soo baxo degmada Xudur aan ku imid haddana waxaan mar kale ballan qaadayaa wax alla iyo wixii aan sheegay oo idin weydiistay inaad iigu ducaysaan ilaahay inuu ila garab galo waa fulinayaa waana qaban doonaa marka maad waxaa ku seexanaysaa nin weyn oo mas'uul oo wasiirkaaga ah evidence ku tahay u qaado shaqadan waa in la qabtaa haddaan shaqadan qaban waayene waxay la mid tahay inaan xilkayga gudan waayey maalintii wasiirnimada la ii magacaabo xilka laygu wareejinayay markhaatiyay leedahay yuutuubyaday ku jirtaa meel kastay ku jirtaa waxaan caddeeyey haddaan shaqada qaban waayo oo aan ku feelgaroobo inaan madaxweynaha dib ugu laabanayo boos jecel aysan iga ahayn oo xilkaan u celin doono marka hadduu ilaahay yidhaahdo tan waajibaadkaygay ka mid tahay ilaahay iguma ceebeeyo waa gudanayaa su'aasha labaad waxaa i weydiiyey kusimaha guddoomiyaha ururka dhallinyarada maxamed mustafa barasho wanaagsan nin dhallinyaro ah oo dynamic ah oo fikir furan oo mateli karo dhallinyarada gobolka Boqol ayaa tahay inaan kula kulmo ku barta sharafa ii ahayd dhammaan dhallinyarada aan matalaysa oo shaqaynayay ayaga dhammaantood inaan bartano sharafa ii ahayd wax alla iyo wixii tala soo jeedin aad soo jeedisay waxaa ila socdo la taliyaha sare deeqoobu nood qaadaya aniga noodaan qaadayaa dhammaan 25 wasaaradood iyo madaxweynaha waa gaarsiinayaa taasna hortiinaan ku ballan qaadayaa inaan suubin doono waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego waxaan hadda markaa inta fadhiya wakiil u ahay 25 wasiir walba oo aad duruuftiisa ii sheegteen shirka golaha wasiiradana waa kala hadli doonaa asigana xafiiskiisa inaan gooni ugu tago arrimaha gobolka Boqol degmada Xudur ka jiro waa kala hadli doonaa waxaana kula talin doonaa inuu si degdeg ku yimaado deegaankan waxna ka qabto kooxda quruxda badneed oo heesaysay su'aasha ay weydiiyeen kooxda waxay ka tirsan yihiin 25 wasaaradood waxay ka tirsan yihiin ururada kala duwan ee bulshada rayidka markaad ogtihiin fanka waa xubinta ugu muhiimsan ee bulshada ka jirto
hadda ka hora waxaa la ii sheegay nin mas'uul ah ayaa waxaa la kulmeen hobolada waa beri waxay yidhaahdeen duruufta noocaasaa jirto waxaan rabnaa inaad wax nagala qabato ninkii mas-uulkaa waxaa laygu yidhi wuxuu ugu jawaabay war dalkan maxaa u haysiye annaga waxaan wax la qabanaynaa dadka dalka wax u hayo adinku waxaad tiin malaa iska baxa waxaa la ii sheegay hobolada waa beri inay dib ugu laabteen tiyaatarka oo ay soo alifeen hees la yidhaahdo dadweynahan hanuuninaa hasaawinaa hadalka wax ugu sheegnaa markay ninka u gudbiyeen mas-uulka ahaa isla markuu u yeeray cimaamadu ku xir wuxuu yidhi raalli ahaada waxaa rabtiina qaata fanka annagoo dhan ay naga tirsan yihiin laakiin caadiyan waxay hoos tagaan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta wasaaraddeedana fanka way u baahan tahay madaxweynaha jecel cabdicasiis waa aragteenaan u malaynayaa mar allay mar kastoo koonfur galbeed xaflad lagu qabanayo madaxweynaha heesta waddaniga ee reer koonfur galbeed caanka ay ku tahay nabadaa naasal nuugula marka la shido fadhiga ma fadhiyo marka dhammaanteena fanka mas-uulka ah fankeenna waa jecelnahay khaasatan reer koonfur galbeed waxay ku gudbiyaan afkaartooda heesahooda afmaymay adduunku waxay caan ugu yihiin sahal macalin ciise xasan aadan samatar qoomaal fanaaniintii soo mara oo dhan heesahooda maaygaa waxay yihiin heese caan ah oo soomaaliya o dhan lagu qaado heestaas nabadaa naasal nuugalana waxay noqotay heestii un-ta laga hirgeliyey marka annagana waa ku faraxsannahay fankeennana waa garab istaagaynaa waana la shaqaynaynaa ifraax waxay tidhi waa gubaabadaa soo jeedaysa ifraax aadaa u mahadsan tahay dalkiin dib loo dhiso ciidamada la garab istaago wasaaradaha laga shaqeeyo nadaafadda la qabto maxkamadda isxilqaan lagu dhiso geedihuudiga magaalada wada qabsaday isxilqaan in lagu jaro dadka muxuu ahaa arrintan la yidhaahdo isxilqaanka ee deegaankan lagu yaqaano iskitalooy in dadkay ku wada shaqeeyaan dhammaanteen garbaha aan isqabsanno tala gubaabo fiicanay ahayd waa waxaan rabnay inaan ku shaqayno waa wixii maanta aan soo arka dhallinyarada adasiimtaam haddaa hoos u degto gabdhaha maxaad ku dhiirigelinaysaa waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha inay yihiin roon moodalka ummadda soomaaliyeed adinka aa hoggaan u tihiin dalkan xukunkaad rabtaan aad ka qaban kartaan adiga ifraaxe aad xaq u leedaha wasiirka dhallinyarada inaad noqoto madaxweynaha koonfur galbeed inaad noqoto madaxweynaha federaalka soomaaliya inaad noqoto dhammaantiin waxaa idinkugula talinayaa dadaala qof idin dhaanta ma lahan adinkaas soomaaliya lafdhabar u ah annagana haddaan ragnahay la'aantiin ma noolaan karo idinkamana maaranno eeney wuxuu i weydiiyey dhismaha garoonka horta marka lacagta la wareejinaya anaa wasiir ahaa lacagta waxaa lagu wareejiye wasaaradda laakiin wasaaradda lacag ma taabato lacag waxaa shaqo ku leh wasiirka lacagta wasaaradda maaliyaddaa shaqo ku leh lacagtaas waa haynaa xoogaa yar duruufa iska jirtay hadda way naga soo xalisantay marka hore waxaan ka fikiraynay sida hadda adiga aad sheegto waxaad tiri kaalkacyo iyo garowe iyo meelahaasiyo haddii lacag la siiyey way ka hirgaleen kismaayo garoonkeeda dhismo fiicanaa ka dhacay garoommada kale dhismo fiicanaa ka dhacay sababtan waxay ahayd dekedda muqdisho marka alaabta laga soo dejiyo 5 daqiiqo kadib waxaa la geynayaa garoonka istaadi muqdisho marka dekedda boosaaso alaabta laga soo dejiyo waxaa la geynayaa garoonka kubadda cagta ee dekedda garoonkii garowe kismaayo marka laga soo dejiyo waxaa la geynayaa isla garoonka kismaayo laakiin xudur alaabteeda waxay noqotay ama inaan ka soo dejinno dekedda boosaaso ama dekedda xamar inaan ka soo dejinno hadda arrintaas waxaa aad uga shaqaynayso wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyadoo la kaashanaysa madaxweynaha waxaana rajaynaynaa alaabta sida ugu dhaqsiyo badan inaan ku keenno degmada xudur shaqadiina la bilaabo waxaa kaloo arrin aad u fiicana disaynkii lagu dhisi lahay garoommada waa suubinay waa diyaar waxaan sugaynaa oo keliya alaabta in la soo dilifar gareeyo alaabtaasna waa la soo dilifar gareynaa shaqadaasna waa la qabanaa shaqadaasna waa shaqo annaga aad nagu adag komid nagu ah waxayna qayb ka tahay horumarinta arrimaha isboortiga ee degmada xudur waana qabanaynaa shaqadaas
Moti. Kalau mana sangat paham pada kaji, karena ada. Aku juga bekerja. Bade. Ya. Luar juga jauh dia. Ya. aamino arinta waxbarashada ay weydiisay horta koonfur galbeed waxay ka kooban tahay 18 degmo degmada xudur waxay ka mid tahay degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya waxay xaq u leeyihiin waxa ay degmooyinka kala helaan inay helaan waxay xaq u leeyihiin waxbarashada dibadda inay wax ka helaan waxay xaq u leeyihiin inay helaan iskoolaad tayo sare waxay xaq u leeyihiin jaamacado aad u fiican inay helaan arintaas wasaaradda waxbarashada waa ku mashquulsan tahay waxaa laga yaabaa annaga ka wasaaradaha inay dhammaantood wasaaradda dadaal ku jira ay yihiin dhammaantoodna ay rabaan inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka arintaas wasaaradda waxbarashada iskale waa gaarsiin doonaa annagana markaas shirka golaha wasiirada fadhino wasiiradeena dhexdooda su'aalaadaan isweydiinaa mar kastana aniga waxaan u doodaa dhallinyarada sidii waxbarasho tayale loo gaarsiin lahaa arrintaasna waa idinka gaarsiinayaa konseen walbo oo aad ka qabtiin golaha wasiirada sida guddoomiyaha uu sheegay wasaarad walba isku duweeda inay xafiis ka furato degmada xudur iyadana golaha wasiiradaan gaarsiin doonaa madaxweynahana si khaasaan fariintaas u gaarsiin doonaa haddeer taana madaxweynaha videogan wuu arki doonaa waxaa laga soo geyn doonaa tv-ga koonfur galbeed soomaali anigana si khaasaan ula fadhiisan doonaa oo noodkaas u siin doonaa waxaana waajib ku ah wasiirka waxbarashada iyo wasiir walbo kootada ee leedahay degmada xudur iyo degmooyinka kaleeto in la gaarsiiyo samiira waxay i weydiisay gabdhaha xudur maxaa wasiirada loogu dari waayey adaan kaa bilaabaynaa rishafalka ugu horrayso gabdhaha cv-yaa keensadaan gabdhaha ha yimaadaan laakiin madaxweyne aad u gabdho jecel gabdho wasiiro siiyey gabdho wasiire ku-xigeen u siiyey oo gabdhaha madaxweyne gabdhaha aad u qadariyo waaye adinkan waxaan laga rabaa inaa hal tallaabo hore u soo qaadiin albaabada soo gargaraacdiin cv-yada keensatiin madaxweynaha u sheegtiin cid waxa idin dhaantay inaysan jirin annagana gabdhaheenyaatiin waxaan ku faraxsannahay beri samiire inaad noqotid booskayga wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha dalkan dhallinyaradooda aa hoggaamisid waana soo dhowaynaynaa furitaanka xafiisyadana waa ka jawaabay arrintaas aadaan uga shaqaynayaa markaan tago waxyaabaha noodka ugu badan nooga qorshaysanay ka mid tahay arrintaas noodkeeda madaxweynaha u gudbin doonaa waana ku dadaalaynaa sharmaarke waxaad tidhi fursadda dhallinyarada bakool maxaa loo siin waaye dhallinyarada xudur maxaa fursad loo siin waaye waxaa ogaataa wasiirada waxaa waajib ka saaran degmo walba iyo deegaan walba inay siiyaan fursad hadda aniga waxaan inta u joogaa wixii ay lahayd degmada xudur inaan kala shaqeeyo oo aan qaybteeda ka siiyo safaradee baxayaan loo qaado aniga wasaaraddeeda dhowr safaray u baxday ururada dhallinyarada heer qaran waxaan u malaynayaa gabaraa ku jirto ma u malaynaya waa hubaa gabaraa ku jirto waxaana ogahay gabadha ku jirta inay tahay gabar degmada xudur ka soo jeedo gobolka bakool ka soo jeedo reer xudur ah ayaa waxay fadhisaa xubinta ururka dhallinyarada heer qaran ee koonfur galbeed nuurtaa la dhaha magaceeda waa raadin kartiin oo reer xudur ah marka taas naftarkeeda wasaaraddeeda waxay u taas naftarkeeda waxay u baahan tahay in wasaaraddeeda lagu abaalmariyo marka fursadaha waa siin doonaa waa dadaalaynaa sanadka hadda cumar iyaan waxaan u waday inay ka qayb galaan shirweynaha qaran ee dhallinyarada waxaa laga yaabaa sometimes inay tabar iyo duruuf iska jirto laakiin waa dadaali doonnaa annaga hadda markaan inta nimid waxyaabo badanaa indhaindhayno markaan annaga isku noqonno ka wasaarad ahaan ah waxaan soo go'aansannay 6 bisha abriil
waxaa waaye maalin international day oo adduunyada dhan laga qabto xaflad lagu magacaabo sports for peace sanadka hore xafladdaas anigoo wasiir cusubaan qabtay waxaan ku qabtay degmada baydhabo markaan hadda halkaan imid aniga iyo la taliyaha agaasimaha guud iyo agaasimo waxiidada markaan isla hadalnay waxaan go'aansannay sanadkan xafladdaas internationalka ah inaan ku qabto degmada xudur oo anigaan dib u soo laabto xafladdii inta lagu qabto dhowr boqol oo qof oo reer xudur aan inay ka qayb qaataan maalintaas caalamiga ah hadduu ilaahay yidhahdo waxaan ku qaban doonaa degmada xudur tabarteeda meel kasta i gaarsiiso waa igu tashanaysiin 6 abriil dibaan ugu soo laaban doonaa xudur maalinta la yidhaahdo international day sports and peace waxaan ku qaban doonaa degmada xudur kootada ugu badan waxaan siin doonaa gabdhaha qabanqaabadana waxaa qaban doonaan arrintaas gabdhaha qaban doonaan marka waa mahadsantihiin aniga safarkaygu xudur horta waxbaa idinka bartay waxaan idinka bartay dad isjecel oo isgarabsanayo oo walaal ah oo habeenkii taleefanada inay barkinta hoos gashtaan qofka kala wacaya isdhegaysto amniga kan jiifo iyo kan soo jeedo ay ka wada shaqaynayaan maalinnimadii dhallinyarada deegaankan inay diyaar u yihiin inay jagboyntiyada deegaanka tagaan magaalada gudaheeda ka shaqeeyaan roondada ay haayaan ay ayagu dhaxdooda isku tashteen ay go'aan ku gaareen inay cadowga iska celiyaan dalkooda iskaa wax u qabsa ku dhisteen ay haddeertaan marayaan maxkamaddii deegaanka ku taallay inay iskaa u qabso ay ku dhistaan waxaasna ay ka tahay deegaan jecel maanta aniga waxaanan aaminaynin inay qalbigayga weligay ka go'aynaan soo arkay gabar soomaaliyeed oo reer xudur ah oo cunug yar oo 9 bilood jiingad la dhex jiifo jiingad u dhex jiifo waardiye hayso dadka ka baarayso si magaalada gudaheeda amni loogu joogo ilmaha kale ay gabdhaha walaalaheed dhaleen ay iskool nabad ku aadaan ay dugsi quraan nabad ku aadaan gabar ka shaqaynaysaa maanta soo arkay wallaahi bilaa aadaan uga qiirooday waana ku farxay macnaha qof go'aan ku gaaray inaan walaalkeed oo dhaawac ah ama walaalkeed aysan cadow ku hordilin ama aabbaheed aysan cadow ku hordilin ay magaaladeeda ka ilaashato soomaaliya ma u malaynaya degmo ay ka jirto inay jirto waxaa la rabaa afkaartiinna iyo ra'yigiinna iyo aragtidiinna inaad ku soo gudbisiin iyada oo wanaagsan waxaana laga rabaa inaad deegaanka u ducaysiin ducada ilaahay lagama quusto waxaa laga rabaa walaalihiin khaldan ee la marin habaabiyey ee shabaabka jiro inaad la hadashiin qalbiga uga ducaysiin afka uga ducaysiin waxaa la rabaa inaad madaxweynaha u ducaysiin waxaa la rabaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo madaalayaasha ah oo aa ogtihiin intay mushaar la'aan ku shaqaynayeen inaad u ducaysiin oo garab istaagtiin waxaa la rabaa kuwa hadda duurka taagan ee buuraha saaran inaad u ducaysiin oo garab istaagtiin waxaa la rabaa inaad tiraahdiin soomaaliya ha toosto soomaaliya gacmaha ha isqabsato soomaaliya ha guulaysato koonfur galbeed ha guulaysato adinkana guulaysta dhammaantiin waa mahadsantihiin xafladda waa noo xihan tahay